sideen ku qaabil karnaa bisha Ramadaan way kala duwan tahay xaalada ay dadka ku qaabilaan bisha soon dadka waxa kamid ah kuwa ciyaaraha iyo tartamada sportiska ku mashquula qaar kalena waxay waqtiga ku bixiyaan daawashada musalsalaadka iyo aflaamta iyo qaar kale oo hamigoodu yahay cunida cabida dukaamaysiga dadka badankooda waxa soo qaabilaya bisha khayrka ee soon balse waxay waqtigooda ku bixiyaan hurdo iyo nasiyo sidaas ayayna ku dhaafaysaa asigoon waxba ka faa'iideysan bisha Ramadaan nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay raqima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadaan thumma insalakha qabla an yughfara lahu hoog ayaa u sugnaaday qofkii bisha Ramadaan soo haleelay oo kadibna ay dhamaatay asigoo aan loo dambi dhaafin haddaba si aan uga mid noqon kuwa hooga u sugnaaday bisha Ramadaan waxa laga marmaan ah inaan caziimo adag iyo niyad wanaagsan ku soo dhaweyno bisha Ramadaan si aan uga faa'iideysano habeen iyo maalinba raadinta raali aanshaha Rabbi oo aan noqono sidii ruux galay beer ay ku yaalaan miro macaan oo ka soo qaata inta uu ka awoodo haddaba qorshe u samayso waqtigaaga si aad uga faa'iideysatid bisha Ramadaan oo ka bilow hadda ma ogtahay tirada saacadaha bisha Ramadaan inay tahay 720 saacadood 660 saacadood oo kamid ahna hurdo cunid cabid booqashooyin dukaamaysi iyo wixii lamid ay naga baxaan oo aysan banoo hareyn 60 saacadood oo u dhiganta 5 maalmood mooyee sida awgeed ogow in waqtigaagu qaali yahay ee ha ku beerdareen waxaan faa'iido lahayn ku dadaal salaada taraawixda inaad ku dukato masjidka nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay man qaama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla cidii imaamka la istaagtay ilaa uu salaada ka dhameeyo waxa loo qorayaa ajarka qof habeenkii oo dhan salaad u taagna ka dhigastaantaada bisha Ramadaan ima dhaafayso takbiiratul ihraamka yeesan dhicin inuu aadaanka dhaco adigoo masjidka ku jira mooyee bad akhrinta quraanka kariimka oo go'aanso inaad dhamayso ugu yaraan hal mar ha ahaado hadafkaaga inaad quraanka ku tadabburtid kuna amal fashid bisha Ramadaan waxaa ku jira 10 habeen oo aad u fadli badan 10ka habeen waxaa ku dhex jira hal habeen oo ka khayr badan kun bilood in badan oo inaga mid ah waxay ku mashquulaan habeenkaas dukaamaysi iyo isku diyaarinta ciida sida daraadeed waxaan kuugu naseexaynayaa inaad joojisid wax walba ka mashquulinaya cibaadada bisha Ramadaan ku buuxi waqtigaaga dikriga iyo ducada inta lagu guda jiro bisha Ramadaan maxaa yeelay albaabada samada waa ay furan yihiin Ramadaan waa martin ugu soo fool leh wanaaji soo dhaweyntiisa